بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha golaha wakiilada labada gudoomiye ku xigeen xubnaha golaha wakiilada gudoomiyaha iyo xubnaha guddiga doorashada korjoogayaasha ka socda dadweynaha musharaxiinta ay gula tartamaysa xilka madaxweynenimo ee Puntland waxaan kaloo salaamayaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland ee sharafta leh oo ay ugu horeeyaan isimada saraakiisha ciidamada aqoon-yahanada ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada baada saxaafadda iyo ciidamadeena ka shaqeynaya amnigeena iyo gudiyaashii doorashada ee inoo suura geliyay inaan si nabad ah oo habsami u socod ah inay inoogu dhacdo doorashadeenan waxa farxad yahay inaan hortiina soo istaago maanta anoo u taagan xilka ugu sareeya ee hoggaanka dawladda Puntland waxaan jeclahay inaan idin la wadaago xaaladda Puntland ku sugan tahay maxaa ka qabya ah maxaase hagaagi waayay muddadii ay Puntland jirtay iyo barnaamijkeeda siyaasadeed oo dhameystiran oo lagu saxayo wixii qaldamay laguna hagayo siyaasadda Puntland 5 sano ee soo socota xildhibaan taariikh nololeedkayga iyo barnaamijkeeda siyaasadeed oo dhameystiran oo aqrin kartaa buuggii aan la wadaagay way argamadeeda shaqo waxay u badan tahay dhinaca ciidanka waa tan maantay Puntland baahida ugu badan ugu qabto waxaan leeyahay khibrad ciidan khibrad shaqo dhinaca hoggaaminta ciidamada militariga iyo xoogga amniga Puntland muddo dhan 14 sano waxaan soo noqday agaasimihii guud ee ciidamada Puntland ee loo yaqaan Puntland Security Force waxaan kaloo ahaa la taliyaha sare dhinaca amniga dawladda Puntland waxaan ku faraxsanahay ciidamada amniga aan soo hoggaaminay in lagu tiriyo inay yihiin ciidamada kuwooda ugu tababarka fiican ugu xirfadda sareeya uguna akhlaaqda wanaagsan dhammaan ciidamada Soomaaliya tan iskama imaan ee waxaan u arkaa inay ku timid hoggaaminka wanaagsan wadada kaliya ee noo furan maantay waa inaan isbedel sameynaa oo guulaysanaa buugga aan idin qaybiyay waxaan ku soo ururiyay barnaamijkeega siyaasadeed oo dhameystiran waxaana ku tilmaamay xalka meesha uu ku jiro iyo sida loo goobayo buuggaas aad aqrideen waa hagayga siyaasadeed 5 sano ee soo socota haddii alla idmo waxaan idin ballan qaadayaa haddii ilaahay ii guuleeyo loolanka doorashada madaxweynenimo inaan soo dhiso hay'adihii dawladda dhameystiran oo u madax bannaan howl gudashadooda isla markaasna guto waajibaadkooda si mas'uuliyad iyo daahfurnaan ku dheehan tahay waxaan idin dhisiyaa dawlad aad ku riyaaqdaan ubadkiinana u ayaan Puntland cusub oo dib u corotay amniga sidaas oo socotaanba amniga Puntland wuxuu soo wajahay xaalad khatar ah oo aan la dhayeysan karin una baahan in wax la iska weydiiyo waxna laga qabto waxaan halkan salaan sharafeed uga dirayaa ciidamadeena geesiyaasha ah ee ku sugan jiidaha dagaalka sida buuraha Calmadow iyo Calmiskeed iyo Tukaraq dawladdu ma sii jiri karto mar haddii aysan awood u lahayn inay isdifaacdo amnigeeda sugato xadkeeda ilaashato xukuumaddeedu waxay ballan qaadaysaa inay ka shaqeyso dhisidda tababarka qalabaynta dib u habeynta ciidan lagu kalsoonaan karo oo guta waajibaadka saaran sida ugu habboon waxaan dhisi doonaa anshaxa iyo aqoonta dagaalka ee ciidanka waxayna noqon doonaan kuwa aaminsan ciidooda waxaan ballan qaadayaa ciidamada Puntland inay helaan daryeel dhameystiran mudnaanteeda koowaad ee waxqabad waa argagixisada inaan ka ciribtiro Puntland Soomaalidiidkana ka saaro deegaanada Puntland oo ay xoog ku haystaan marnaba ma ogolaan doono mana aqbali doono Puntland kala maqan Puntland tii weyneed waan soo celin doonaa insha Allah soo celinta dhulka maqan kuma xirna rabitaankeyga ee waajib dastuuri ah oo isaaran la dagaalanka argagixisada waxay u baahan tahay in wax laga bedelo istiraatiijiyadii hore ee u qaabeysneed dagaalka foolka fool ah oo kaliya gulufka dagaal waa inuu hareer socdaa dagaal dhinaca fikirka ah waxaan awoodda saarayaa horumarinta ciidan sirdoon ah oo u diida cadowga inuu ku dhuumaalaysto gudaha shacabkeena mana heli doonaan gabaad qariya dhaqaalaha Puntland maanta waa mid burbur iyo hoos u dhac hareeyay sixirbar baacad leh saboolnimo baan shaqo la'aan musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyay nolosha shacabka
dhaqaalaha waa tiirka udubdhaxaadka u ah dawladda furana u ah adeegga dawladnimo bixiso si dhaqaalaha waddanka loo kubciyo waxaan ka shaqaynayaa ka faa'iidaysiga khayraadka waddanka iyo kobcinta wax soo saarka sida beeraha xoolaha iyo khayraadka badda waxaan dhiirigelinayaa maalgashiga iyo warshadaha yaryar si loogu maarmo wax kasta oo dibadda laga keeno waxaan si dhab ah uga shaqaynayaa fariisinta sicirka sarifka lacagaha qaraadeed ma dhici doonto ganacsato ama xilhayaal xukuumadda ka mid ah inay isku soo daabacdaan lacag xukuumaddeeduna haddaad ii dhimataan hoggaankeeda waxay dagaal adag la geli doontaa wax kasta oo la xidhiira musuqmaasuqa waddada aan u maraynana waxay tahay awoodsiinta iyo madax bannaanaynta hay-adaha shaqada ugu xilsaaran sida xafiiska hantidhowrka guud iyo garsoorka adeegga arrimaha bulshada mudane ali marweyn xoojinta adeegga arrimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada waa arrimaha aan doonayo inaan gaarsiiyo dhammaan deegaanada puntland waxaan ka shaqaynayaa horumarinta waxbarashada anoo xoogga saari doona tayeenta manhajka iyo kordhinta miisaaniyadda waxbarashada ay ka hesho miisaaniyadda guud ee dawladda puntland waxaan si gaara u diyaarsanaynaa qorshe waxbarasho oo loogu talagalay ardayda danyarta ah sidoo kale adeegga caafimaadku wuxuu ka mid yahay adeegyada ugu muhiimsan oo ay dawladda ka shaqayn doonto haddii alla idmo waxaan puntland ka hirgelin doonaa isbitaal weyn oo ka maarmi doonta bukaankeenna loo qaadiyo dibadda iyo maamulada deriskana ah cadaaladda waxaa ugu weyn ee lagu cabiro horumarka ummadaha waa heerka hadba ummaddaasi ka joogto nidaamka cadaaladda waxaa la yidhaahdaa cadaaladdu waa asaaska xukunka taas macnaheedu uu yahay cadaalad la'aan xukun jiri karaa ma jiro waxaan ballan qaadayaa oo ka shaqaynayaa in cadaaladdu sarrayso laamaha garsoorka noqdaan kuwa lagu kalsoonaan karo loona dhammaystiray wax kasta oo u fududaynaya inay gutaan waajibaadkooda sida ugu habboon maamul wanaagga tan iyo markii la aasaasay puntland dowladda ugu weyn waxay ahayd sida maamulka uga tallaabsan lahaa hanaan maamul oo ku dhisan isla xisaabtan iyo daahfurnaan si loo gaaro yoolka waxay noqonaysaa hay-adaha dawladda kuwa iskor joogteeya waxaa laga guurayaa dhaqan siyaasadeedkii madax ka noolka ahaa waxaan ka shaqaynayaa daadejinta maamul iyo in puntland aan hirgeliyo nidaam doorashada ee loo yaqaan qof iyo cod si looga gudbo hanaanka doorasho ee qabiilka ku dhisan shaqaalaha dawladda ciidan iyo rayidba ma dhici doonto in xuquuqooda la lunsado xukuumaddeedu waxay ballan qaadaysaa inay bixiso mushaaraadka lagu yeeshay shaqaaluhuna waa inay gutaan waajibaadka shaqadooda dawladda federaalka mudane ali marweyn dhisidda dawlad federaal ah waa qorshayaashii loo aasaasay puntland sidaas darteed waxaa iga go'an inaan hubiyo khilaafaadka soo noqnoqday ee u dhexeeya dawladda federaalka iyo puntland waxaan ka shaqaynayaa sidaan ku soo celin lahaa wada shaqayntii ka dhexaysay dawladda federaalka iyo puntland anoo la tashan doona xildhibaanada labada aqal ee dawladda federaalka noo matala dhallinyarada waxaa la isku waafaqsan yahay in hantida ama xoogga ugu weyn ee ummadi leedahay ay tahay dhallinyaro dhalinta puntland ee da'dooda ka yartahay 30 sano ayaa lagu qiyaasaa inay ka yihiin tirada guud ee dadka puntland in ka badan 70% kuwaasoo la kulma caqabado siyaasadeed dhaqaale iyo mid bulsho oo ka hortaagan inay kaalin mug leh ka qaataan inay kaalin mug leh ka ciyaaraan guud ahaan horumarka dalka si awoodda dhalinyarada looga faa'iideeyo waxaan ballan qaadayaa inay hormuud ka noqdaan hanaanka siyaasadda ee puntland waxaan awoodda saari doonaa sidaan shaqo abuur ugu samayn lahaa dhallinyarada oo aan u arko dhibaatada ugu weyn oo haysata inay tahay shaqo la'aan haweenka dumarku waa lafdhabarta bulshada iyo kuwa isbeddelka u horseeda bulshooyinkeena waa haddii loo diyaariyo jawi habboon waxaa la gaaray wakhtigii ay heli lahaayeen xaqooda oo dhammaystiran waa in la joojiyaa guud ahaan xadgudbiyada ka dhanka ah dumarka iyo wax kasta oo noqon kara xuquuqid waxaan ballan qaadayaa haweenka xukuumadda aan dhisayo inay uga muuqan doonaan si mug leh xildhibaanada sharafta leh muddo ayaan isha ka dhuganayay xoogaalna u ahaa xaaladda puntland ay ku sugan tahay anoo rajaynayay inuu isbeddel dhici doono nasiib darase ma dhicin maalintii ka dambaysay waa ay ka sii daraysay xaaladda